Lincoln Town waa gaari la soo saaray 1997 oo ku soo baxay sumad heer sareysa oo ah in lagu kaxeeyo madaxweyne ama uu dhexdiisa ku nasto qof qani ah. waa 8 Boston cilad ku timaada matoorka gaarigan ayaana ah mid naadir ah. 500 oo kun oo kiiloomitir masaafo dhan marka uu jaro ayaa la sheegay in mar kaliya laga bedelayo faashadaha matoorka. Go'jirsigiisa ku siman 20 sano waa markii ugu horeysay ee magaalada Muqdisho lagu arko gaari noocan oo kale ah, waxaana uu uga duwan yahay gaadiidka kale nooca uu u samaysan yahay iyo adeegyada gudihiisa laga heli karo. gaariga waa Lincoln Town Car, magaaladuna waa Muqdisho. dunida inteeda kale marka loo eego gaariga noocan oo kale ah waxa ku socdo dadka qaniga ah ama taajirka ah, laakiin in dhaba kamida Muqdisho uu gaarigan ku socdo waxa hindisay oo hal abuuray ganacsade Soomaaliyeed oo doonay inuu hoga tusaaleeyo horumarka xilligan wadanka ka jira. marka uu wadada marayo waxa la arki karaa dad badan oo la dhacsan gaarigan maadaama ay iyagu ka daawan jireen aflaanta waliba kuwa Hollywoodka. marka uu taagan yahay xitaa dadku waxay saf ballaaran u galayaan inay isku sawiraan ama sawiro ka qaataan gaarigan, tani oo muujinaysa in caasimadu ay la imaanayso horumar dhanka gaadiidka ah. si waqtigii iyo farxad ay ugu qaataan. waa Cabdullaahi Xuseen Axmed oo ah mas'uulka gaarigan oo sharxaya waxa ku qaaday in gaari lacagtiisu dhan tahay $50,000 uu keeno Muqdisho. hadafka gaarigan aan ka leenahay waxa waaye in uu muujiyo horumarka Muqdisho iyo Soomaaliya dhan ka jiro. tan kale waxaan ugu talagalnay in aan dhalinyarta rag iyo dumar ay guursanayo ama caruurta qalin jabinaysa kale ama xilliga dhalashada kale xafladaha kale in la tiriyo ay dadkaas kiristaan oo ay kiristaan si waqtigii iyo farxad ay ugu qaataan. sidaas ayaan ugu talagalnay gaarigan. fursadda kale ee ka furan isticmaalka gudaha gaarigan marka laga soo tago in madaxdu ay adeegsadaan waxa iyadana lagu guurin karaa aroosyada, sababtoo ah waxa uu mar kaliya qaadi karaa ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan 2 qof ee aqalgalaya, malxiiska iyo malxiisadda oo lagu daray ehelada labada dhinac. aniga saaxiibka malaynaaya dadka markii abnaanka taagan xataa aroos galaya muhiim u tahay in halkan quruxda way qabowgiya yaala sharaabkii cabitaankii iyadoo arooska la gelbinayo meesha keega lagu cunaa xaafadda si wanaagsan. hal abuurada gaarigan waxay xuseen inay diyaar u yihiin in si muddo dawacnimo ah ay u caawiyaan dadka aysan u saamaxaynin inay lacag ku kireystaan gaarigan oo xaruntiisu tahay Muqdisho. Lincoln Car waxyaabaha gudihiisa aan ku arkay aniga saaxiibadeeda waxa kamid ah in runaantii marka gudihiisa ku jirto dadka idil ee magaalada ay ku soo wada eegayaan iyagoo waliba muuqaalka gaarigan la yaaban habka uu samaysan yahay. sidoo kale gudihiisa sidaan aan dadka u bandhignaba wuxuu leeyahay waxyaabo qurux badan sida inaad ka heli karto adeegyada shaaha uu kamid yahay. sidoo kale waxaad heli kartaa dhala aad fiirsato oo muuqaalo kala duwan aad harkan ka helaysaa. qabow waaye runaantii waa nooc ka duwan gawaarida caadiga ah ee aan arki jirnay, waana sida aan hore u sheegnayo waxa wata gaarigan qof qaali ah, laakiin hindisahan waxa iska leh qof Soomaaliya oo ku dhiiranaya horumarka wadanka ka jira.